faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax khasaare geystay oo ka dhacay degmada Daynile ee gobolka Banaadir. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabari ayaa warkan faahfaahinaya. qaraxani ka dhacay degmada Daynile ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso, waxaana qaraxani uu qabsaday gaari saarif ay ula socdeen dad shacab ah sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah oo ku sugnaa degmada Daynile ee magaalada Muqdisho. qaraxani ayaa waxa uu si gaar ah ugu dhacay meelan sidaas ugu fogeen isbitaalka Guutaale oo ku yaala degmadaasi. dadka ku dhaawacmay qarax ayaa waxaa la geeyay isbitaalada qaar ee magaalada Muqdisho oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo. goobta uu qaraxa uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo isku gadaamay halkaas isla markaana baaritaano ka sameeyay. inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin baaritaanada ay sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dad ay u soo qabqabteen. dhanka kale ma jirto wax war oo ka soo baxay maamulka degmada Daynile oo ku aadan qaraxaasi waxyaabaha ay ka og yihiin. shalay ahayd markii qaraxyo khasaare geystay ay ka dhaceen magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. iyada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa ku dadaalaya xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Waabari, Som News, Muqdisho.